waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kanaalka Qalbi Soomaali TV daawadayaal hadalka aad maqlaysaan waxa uu ka soo yeedhay fanaanka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Maxamed Saciid BK laakiin hadalka kadib waxa jira fanaaniin Soomaaliyeed oo u jawaabay BK kuwaasoo siyaabo kala duwan uga jawaab celiyay hadalkiisa laakiin daawada intaanan ku soo gudbin hadallada fanaaniinta Soomaaliyeed ee BK u jawaabay fadlan haddaad nagu cusub tahay calaamadda subscribe ka taabo kadibna gambaleelka furo waayo waxaad heli doontaa wararka ugu xiisaha badan isla daqiiqada aanu soo galino daawadayaal hadalkii ka soo yeedhay fanaanka Maxamed Saciid BK waxa si adag oo cara iyo caadifad ka muuqata uga jawaabay fanaanka kale ee loo yaqaan Iidla Yare run ahaantii fanaanka ma aha fanaan rajeynaya inuu Hargeysa mar uu tago waayo runtu waxay tahay Hargeysa fanka waxa looga dambeeyaa fanaanka aynu ka hadlayna ee loo yaqaan BK isaga fanaan uusan ogolaan magaalada waxba kuma qabsado laakiin Iidla Yare wuxuu noqday fanaankii koowaad ee ka jawaaba ama ka jawaab celiya hadalka Maxamed Saciid BK Iidla Yare daawadayaal waxa uu baraha bulshada ku soo qoray hadal dad badan ay ka jawaab celiyeen hadalkaas oo noqon kara hadal colaad weyn ka dhex abuuri kara labada fanaan laakiin runta aynu ku laabanno Iidla Yare waxa uu si shakhsi ah u weeraray fanaanka Maxamed Saciid BK loo yaqaano isagoo barbar dhigay eeyaha iyo dameeraha Hargeysa fanaankan Soomaaliyeed ee loo yaqaan Iidla Yare isagoo u jawaabaya fanaanka Maxamed Saciid BK waxa uu yiri BK iska daa inuu ka hadlo ama ku hadlo afka dadka reer Somaliland ee lagu yaqaan gobonimada iyo hiilada walaaltinimo xitaa ma matala BK eeyaha iyo dameeraha ku nool Somaliland inta kadibna fanaanka Iidla Yare waxa uu hadalkiisa sii raaciyay shacabka Somaliland gobaad tihiin markii laga reebo xoolaha macaasha weyn oo hadalkiisa qaybta ugu dambaysa uu ku sheegay inuu ula jeedo BK daawadayaal fanaaniinta kale ee ka jawaabay hadalkii BK ee ku saabsan qaraxii Muqdisho waxa kamid ah fanaanada Xamdayar run ahaantii fanaanadani waxa ay muddooyinkii ugu dambeysay jeclaysatay nolosha magaalada Muqdisho waxayna in badan oo nolosheeda kamida ku qaadatay halkaas laakiin fanaanadani waxay si damqasho leh uga hadashay shacabka lagu xasuuqay magaalada Muqdisho iyadoo BK ku eedeysay inuu ku farxay haddaba daawadayaal fanaanada Xamdayar waxay soo qortay qoraal aad moodo inuu BK akhrisan doono yacni qoraalku talagala sidaas oo tahayna hadalka fanaanada waxa uu dhignaa sida tan waxa ay tiri haddaadna ictiraafi weydaan idinkana qaraxa waa uu idinku soconaya waan ka xumahay BK-yow inaad ku faraxdo shacabka aan waxba galabsan ee la xasuuqay inaad ku bedelato ictiraaf dhinaca kalena bal daawadayaal aan daawana muuqaalkan waa fartuu balbalaarka oo si xun u cayday fanaanka Maxamed BK iyo waliba shacabka Somaliland محمد BK على هلا جوابت هذا حدا صدو ما قرأته وحيرك بعد فرتون بالبلاط أوفيشيال كدعوة حتى عمر عشان كله محمد BK أنا هتكوسو جوابه فكن سو ما لا قشنت وحيد هاي ماله daawadayaal fanaaniinta kale ee BK hadalkiisa iska indhatiray waxa kamida fanaanada loo yaqaan Nasteexa Indo oo aan BK u jawaabin xilli xaaladan lagu jiro laakiin taasi u dirtay ummadda Soomaaliyeed bal hadaba ila daawo muuqaalkan ربنا أتقصي دمان مدي إسلام كهاي كمساكين كهاي كتعس أو كل مخي محن كل هذا قرحي كذا عين مقدشة إلهي وحن لها إلهي هون حريست إنك متقارن دعوة عن تاني إلهي هأبوه قديو وإلهي عافيه أنتي لما تاني إلهي جنة فردوس الله كورابيو دبعتنا إلهي نقد لقادة دمان تنوين وضع هاي ستا قف كلية لقمد من أنا قدام بين قوضة الإنتان waxaan leeyahay ilaahay dhibaatada naga wada kor qaado intii dhimatay Allah u naxariisto annagana ilaahay nooga daba naxariisto inta xanuunsan ay dhaawacana ilaahay caafimaad sare